waxaan markan idiin soo gudbinaynaa waraysi aan la yeelanay jenaraal maxamed siciid xirsi morgan oo hadda ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee puntland sanadka soo socda ee 2019 su-aashii ugu horreysay aan weydiiyana waxay ahayd bal aragtidiisa ku aadan hadalkii dhowaan madaxweynaha puntland cabdiweli gaas uu ka sheegay magaalada dubai kaasi oo ahaa in soomaaliya aanay muqdisho ahayn muqdishona aysan soomaaliya ahayn والله horta waxa weeye horta dowladda Soomaaliyeed waa jirta dowladda federaalku waa dowladda dhexe ee ummadda Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa dowlad xun waxay dhaantaa dowlad la'aan dowladda maamulka jira waxa weeye waa inay ku xiraadaan dowladda dhexe marka hadalkaas hadda weydiisay Puntland ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas waxaan isleeyahay waxa weeye taas waxay ku imaanaysaa waa la tashi la'aan dowladda dhexe wax kasta oo tallaabo kasta oo maamul jira uu qaadayana waxa weeye dowladda dhexe inay talo ku leedahay waayo dowladda dhexe iyada mas'uul ka ah maamulada oo dhan in marka wixii qorshe ah ee maamulada u baahan yihiin inay dowladda dhexe soo marsiyaan oo ay kala tashadaan horta nidaamka dawliga ah waa asaas masalan imaaraadku waa 7 imaaraad 7 imaaraad oo jira waxaa laga xukumaa Abu Dhabi waxaana xukumaa waxa weeye waa sheekha jooga Abu Dhabi marka innaga hadda federal baan noqonay federaalka dastuurka lagu qoray macnaheedu ma aha in qof walbaaba maamul kastaaba in dhinaciisa wax u jiito ma waxa weeye hadii la yiri muqdisho waa caasimadda dowladda dhexaana fadhida marka muqdisho haday mar caasimadii tahay dowladda dhexaana fadhido waxa weeye waa meesha looga taliyo dalka looga taliyo halkaas waxa ka muuqata inaysan maamuladu wax badan ka fahansaneen nidaamka dawliga iyo sida maamulku yahay iyo systemka la rabo in loo maro markii la rabo in qorshe wax looga qabto dalka maamulka uu mas'uul ka tahay مثلا maamul kaasto haduu qorshihiisa la yimaado xiriir ha sameeyo laakiin xiriirkaas waa og tahay dowladda dhexe tala ka bixisa waayo wasaaradda qorsheynta jirta ee dowladda federaalka wasaaradda qorsheynta xaja wasaaradda arrimaha dibadda waxaasoo dhan waxa weeye waa kuwa wixii arrimo dibad ku saabsan waa nimanka xiriiriya u ah waa nimanka muxuu ahaa sahli kara ama u samayn kara tasiilaad inay waxay doonayaan iyo qorshaha ay doonayaan oo rabaan in dadka ku dhaqan ee Soomaaliyeed ee maamulada kala duwan ku dhaqan Puntland kaliya maaha inay iyagu qorshahaas wax ka qabtaan waxa laga rabaa waa dowladda dhexe marka anigu hadalkaas runtii waxaan isleeyahay waa hadal ku ah gab ku ah dowladda dhexe ku ah waxaan leeyahay waxa weeye dowladda dhexe iyaduna inay u dabacsanaato wax ka qabadka iyo dabacsanaanta wax ka qabadka maamulada inay u dabacsanaato inay ka warqabto inay la socdaan inay baahida jirta ay wax kala qabtaan anu intaas aan qaba fikriyan inay arintu ku saleysan tahay wadanka waxa ka jirta dawlad uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare uu ka xasan Ali Khayr muddo sanad iyo dhowr bilood ayayna shaqeynayaan hanaanka ay ku maamulayaan dalka sideed u aragtaa runtii dowladda horta waxa la dhisay waa sanad iyo xogaa waxay jirtaa hore waxaan hadalka ku jirtay dowlad xum waxay dhaantaa dowlad la'aan runtii waxa weeye dowladdu ilaa hadda dhaliilo waa yeelan kartaa waxa la ilaahay un baan gafin laakiin qofka bini'aadanka waa gafaa dowladda dhexe waxa weeye wax badan dadku waa ka tirsanayaan oo waa maqlay dadka ka tirsanayaan dowladda dhexe waxa laga rabaa inay u dabcinay iyada qorshaha iyo hawlaha ila dowladda dhexe weeye dhaliilo waa yeelan kartaa laakiin ilaa hadda waxna waa qabatay dowladdu runtii lama ankiri karo waxay qabteen iyo waxay tallaabada qaar lama ankiri karo dhaliilana waa jiraan dadku u sheeganaya waxaan dowladda dhexe leeyahay waxaa habboon inay hore u socoto inay waxyaalaha khaladaadka masalan hadda waxaa jiray baarlamaanka isqabsaday muddo
maantana la dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka taas waxay keenaysaa lafteedu dhibaato dowladda ku keenaysaa waa hay-adii sharci dejinta ama sharcigaa wey dowladda hay-ad dhan baa ka maqan markay dhibaato u timid taasu marka dibudhac way keenaysaa waxaan leeyahay inaan loo baahnayn isqaqabsi inaan loo baahnayn baarka muxuu khilaafaad siyaasadeed in loo adeego ummadda soomaaliyeed danteeda loo adeego ayaa muhiima madaxweynuhuna waa madaxweyne dalka maxamed cabdilaahi farmaajo prime ministerku waa khayre systemkii dowladda waa dhisan yahay laakiin waxyaalaha hoose oo jira daano xoogaal uma ahi laakiin dadka cabashadooda waxay ka cabanayaan in la toosiyo yaan isleeyahay ayaa loo baahan yahay dowladda dhexena la taageero oo la ayido oo gacan la siiyo garab la siiyo la garab istaaga waayo shacabka haduusan garab istaagin oo qof walba uusan dowladdiisa garab istaagin oo uu dhaliil kale la soo istaago haddee dowladda hore uma socon karto marka waxaan leeyahay dowladda horsocod waxay ku xiran tahay taageerada shacabka ku xiran tahay webiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa ku fatahay deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya haba ugu darnaato ee magaalada Beledweyne oo inta badan ay fatahaadu saameysay gurmad degdeg ayaana lagu baaqaya arinta maxad ka leedahay la soconaba waxa weeye nimcada eebbe horta yaa keentay fatahaad waa nimco eebbe roob badan baa day webigaa soo fatahay webigaa Shabeelle run ahaantii waxa weeye dad badan baa ku barakacay waxaa la oran karaa boqolkiiba 90 maanta bannaankay taagan Beledweyne dadkii ku noolaa biyuhuna waxay gaareen 2 mitir bay qofka u gaarayaan ama 1 mitir iyo bar bay maanta gaareen dhibaatadaas runtii waxaa sabab u ah anigu shakhsiyan webiga waagi horta webiga markuu guro waa la qodi jiray hadda waxaa moodaa webiga ciidina buuxisay ciiddaa buuxisana inay sababtay biyuhu markay soo bataan in webigu fato waxaa taas loo baahan yahay hadda wax ka dambeeya in laga tashado in webigaasha la qodo oo dadka wax ka qaban lahaa loo yeero oo webiga la qodo ciidda laga saaro si biyuhu ay ugu nagaadaan webiga dhexdiisa taas marka maanta ka dhacday runtii waa arrin aad iyo aad dadka shacabka ee Beledweyne waxaan leenahay waxaan u baaqayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland waxaan ugu baaqayaa si horeba ugu geysteen taageero qaraxii Zoobe ka dhacay si ugu geysteen abaarihii koonfurta ka dhacay waxaan reer Puntland ugu baaqayaa hadday leeyihiin ganacsato hadday leeyihiin culamaauddiin hadday leeyihiin ururo bulsho in maanta loo gurmado gobolka Hiiraan oo la garab istaago oo garab istaagso noqdo sidii ummadda Soomaaliya loo badbaadin lahaa gacanna loo siin lahaa ayaa loo baahan yahay marka waxaan ugu baaqayaa Puntland iyo ummadda Soomaaliya iyo maamulada kale dhammaantoodba in dad garab la siiyo shacabkaas ku dhibaatoobay fatahaadii ka dhacday gobolka Hiiraan جلال محمد سيد حرسي مورغان ورئيسي ساسا يا ودن بيه برنامج كي دبقالك ورركي عاوة قائد مكي عبد الرحمن جامع يا فرسمدي عاويي تانية كلان تدن بسياسيو نبت قليل